weli waxaan ku jirnaa qaybta conversationka waa the Triumph English lessons waa cashirkan waxa way beginners dadka maaragtay hadda bilaaway ayaan cashirkooda ayaan weli wadnaa qaybihii kale weli way soo socdaan insha Allah biidhnillaahi alkariim sida ula socotiin arday ku soo dhawaada cashirkeena qaybtii conversationka qaybtii saddexaad ayaan maanta ku jirnaa Aisha waxay tiri markaa gabadhan mar hore magaceedana waan soo wadanay haddana weli waan iska wadanaa for example Aisha qof aan naqaano maahan balse waan iska wadanaa magacan in lagu fahmo baan u wadanaa excuse me iga raali ahow are you American iga raali ahow ma waxaad tahay qof American ah qof bay la hadlaysa sheekad hore bay u soo socday marka qofkii u jawaabay waa Cabdi ayaa wuxuu yiri no I'm Somali maya ma ihi American waxaan ahay qof Soomaali ah Aisha ayaa conversation qaybteeda la gaaray soo waxay tiri do you speak English miya ku hadashaa luqadda Ingiriiska Cabdi ayaa u jawaabay a little but not very well wuxuu dhahay a little waxaa loo isticmaalaa a little qayb in yar ayaan ku hadli karaa not very well laakiin aad uguma wanaagsanin dhahay luqadda Ingiriiska hadalkeedii Aisha ayaa marka hadashay waxay tiri how long have you been here ilaa iyo waqti intee la dhan ayaa joogtay halkan marka ilaa hadda beesha joogaan anaga ma ogin laakiin maxaa la dhihi jiray labadan qof wada sheekaysanaysa marka waxay ka wareysanaa meesha ay markaa ku sugan yihiin intee wax la dhan ayaa joogtay ay tiri how long have you been here waqti intee la dhan ama muddo intee dhan ayaa halkan joogtay Cabdi ayaa u jawaabay for a period of 2 months wuxuu dhahay waxaan joogaa muddo 2 bilood ah for a period waa waqti of 2 months oo waqti 2 bil ayaan joogaa halkaa Aisha ayaa markaa su'aashii qaybteeda la gaaray what do you do for work maxay tahay shaqadaada ama maxaad ka qabataa ama maxay tahay waxa halkaan ka qabatay maxaa dhayligaada maalin kasta waxaad qabato waa maxay what do you do for work maxay tahay shaqadaada maalinlaha ama shaqada aad meeshan ka qabatid ama camalkaada marka wuxuu Cabdi u jawaabay I am student waxaan ahay qof wax barto arday baan ahay markaasuu markuu I am student arday ayaan ahay how about you day adigana maxaa qabataa maxaa tahay qof noocayaa tahay marka Aisha ay u jawaabtay waxay tiri I am a business lady waxaan ahay gabar ganacsata ah Aisha marka waxay u jawaabtay I am a business lady waxay tiri gabar ganacsata ayaan ahay marka maanta waxaan weli ku guda jirnaa cashirkeeni marka conversationkan waa qaybtii saddexaad ee conversationka sida hore aan u soo aragnay marka magacan Aisha waan wadanay qaybtii cashirka ka horeeyay Cabdi asna cashirkan ayaan ku soo darsanay magacyada wax kasta ayaad u isticmaali kartaa qof kasta oo aad taqaanid baad ku bedeli kartaa Aisha Cabdi laazima inay ahaato marka conversation qaybtii saddexaad Aisha waxay tiri Aisha gabadha laayo excuse me iga raali ahow are you American ma waxaad tahay qof American ah dadka wadanka America u dhashay ma tahay American la America dadka soo jeeda la Americans marka qof American ma tahay marka Cabdi wuxuu yiri no I'm Somali aniga ma qof American ah waxaan ahay qof Soomaali ah do you speak English luqadda Ingiriiska ma ku hadashaa ay weydiisay Aisha marka ninkii Cabdi wuxuu yiri a little in yar but not very well wuxuu dhahay marka in yar baan ku hadli karaa ma ihi qof luqadan ku ah perfect qof ku ah si fiican ugu hadli kara ma ihi Aisha marka waxay tiri how long have you been here waqti intee la dhan ama muddo intee dhan ayaa halkan joogtay Cabdi ayaa markuu jawaabay
for a period of 2 months waxaan halkan ku sugnaa muddo 2 bilood ah. marka hore Asha ayaa waxay what do you do for work? Mina maxaa qabataa, shaqadaada maxay tahay shaqadaada aad qabatid maxay tahay. Cabdi markii uu jawaabay I am a student, waxaan qof wax barto arday ah. How about you? adna maxaad qabataa, maxay tahay xaaladaada. Asha ay u jawaabtay waxay tiri I'm a business lady, waxaan ahay gabar ganacsata ah. Okay, marka sidaan ula socona waa casharkeeni qaybtii 3aad aan ku jirnaa. waxaan filayaa inuu qof kasta casharkan ka dhargay ama si fiican u fahmay. tan kale waa ardaygan u xiran ardayda dhammaan waxaan u sheegaynaa inay casharada ay qortaan, notebook u samaystiin oo aad qoratiin, so that in a future use intaad meeshan ka akhrisid meesha ugu tagi kartid. list waxaa wanaagsan in area kuwaas aad qoratid. casharkan waxaa cashar sii socon doona, sii korraa maalin sii adkaan doonaa. so waxaa loo baahay inuu arday kasta casharkiisa meel ku qorto, buugis ku qorsado. wixii su-aalan hoos nooga soo qorayo insha Allah waa idin kasoo jawaabeynaa. marka hal mar asoo aan ku celinaynaa markii ugu dambeysay aan ku celinaynaa. Asha gabadha Asha la yiraahdo, excuse me iga raali ahow, are you American? maxaa tahay qof American ah. Cabdi ayaa u jawaabay marka no I am Somali, aniga waxaan qof Soomaali ah, qof American ma ihi, waxaan ahay qof Soomaali ah. Asha marka waxay tiri do you speak English? Englishka ma luqad la ku hadashaa. Cabdi ayaa u jawaabay, Cabdi wuxuu yiraahday a little, in yar baan ku hadlaa u dhahay, but not very well, aad uguma fiicna luqadan. Asha marka waxay tiri how long have you been here? waqti intee dhan baa halkan joogtay, waqti intee dhan baa halkan ku sugneed. marka Cabdi ayaa u jawaabay a period of 2 months, waxaan joogay waqti kooban oo 2 bil ah. What do you do for work? maxay tahay shaqadaada aad qabatid, Asha weydiisay. Cabdi wuxuu ugu jawaabay I'm a student, arday baan ahay. How about you? adna maxaad tahay gabar. markaas wuxuu ugu jawaabay I'm a business lady bay tiri, maxaa la jira gabar ganacsata ayaan ahay. casharkii inta ayaan ku istaajinaynaa haddii Alla idmo insha Allah tacaala ilaa casharkeena dambe. waxaan idinku codsanayaa inaad casharadaas ka soo xifdidin, wixii su-aalaana soo weydiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.